صباح ونكسن. Good morning. ايوه راح عادنا كشكاية ساكا صعد يا ديار لويه ان شاء الله. هيا ديار متى؟ ديار معنا يا اوكي let's go ان شاء الله. See you later. Hi. Huh? How you feel in Malaysia? Malaysia is amazing And I'm so excited for Langkawi. I want to have fun there. and how is it? How is Penang? I love it. We I go love around it. in Penang. Yeah, we'll come back. We'll come back, and we go. Which one place you most like in Penang? We Which one didn't place go you around. We didn't explore it that much. We were tired yesterday. والله ودك عليك. So وكلنا صلينا ماشي. شرب العليل قاعد عشان ما صلى. أنا صباح. أنا ولنا أنا هاي ماشي ونص. ما كنا نحن حكي. هيا. جارجاني. ما شاء الله. تارجدا تارجدا كده. كده كقري. كده. يا رب اللهم يسر لنا. بسم الله توكلنا على الله. وريا رب صوص على سبحان الله. ودائرة بالرك. أنا نيو روب لكن وأرجع لها لكن درونكي قام بقى يا موقته. نكن الروب سوء الربي وحسيني. روب العادي هين روبي حاجة وسكوي ما ذاك ورنا عادي معه. أنا باكين كل دقوي أنكو حرينو كبعدين مركب كي أدنو كوردنو طبعا روب أنا عادي هم بس صعد. إيه تيجي كي ونص قد سما. تقدر ولا هي ديار بالي سما اللي وضوء ديرته هي بدها لسارنان يا 6 ساعات عنتو لو باي عنتو فريدة هي وحكي لا أنا ما خيالي. ايه أنت كنا جردي ليكاوي هذا. وش دان دوت ولا سو دقيقة. من هاد معايا هي. هي أنا نصور إن شاء الله. حكرت النيكاري مدة الدور عشان شوغن إن شاء الله. مقالة كسي شوغن نو في أنا دنا هنا كل فشل إن شاء الله. بعد عادنا هوتيلك وحن تكون كسي أدنى أيام أولها إن شاء الله قشينا نقشيش إنه يلا يرتفع ده سمين بدك ويلا وحواي جوارجي كردا ولا يكرنيا دور كعشو كبعدي بس قادنا هذا ربتنا موطا قادنا هذه كلنا وح عادي أقول جنسا أدي قفوي معني أنا يسكلا وأضاء صفر دامنية وركا ومهم أنا أوجاتت أو تقشيست كبعدي أضي بجت كأضاء قياسي أما العكت هذا يا وقلت الجلسة. من إن الله سيدك يا الله. كاري لورنج ري قرابة قوي سكر. قرابة قوي سيا. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. ولا هلا أنا في ردي. يلا ورن والله لو الصوماليا ولنكاوس كجت بد أود الحستيال سكول شيء أيها لو قبتي لنكاوي تسير ده لنكاوي يجوز كده أنا جواري كشيران. وربع بدأ مقالة وصيد كذا من كلام. توزع. إيه. يا رب أكرسنا for 4 days. يمكن نقصي مطغاني. حصوة دبغية؟ لا صبينا. ما قلت لي ما حاتري نيو أفر عشان كريس النقاري. حتى أفر عشان كريس النقاري. يمكن نقاتين. عقب الليل. نقاتين العقير بين نقاتين. أبو هدولكم هي $14 for 4 days. مالتي $3. هذا وصل عنا جزيرة. هوتيلك وصل عنا؟ ما هوتيلك وصل عنا استغفر الله سوري. هوتيلك وصل. قاري والله بوقتها أي مركا. تخيل سبحان الله. عقار كان بيلي جديدة. سبحان الله. كنا هو داير. نصاب من. قبل حام يا شباب. قبل حام زمان داير. مو داير عبد العزيز بيتشل. ما قرأت. هذه موتر. ماشي. ايوه كذا.
raqiis waryaanahe war maxaan haystaa war maxaan ugu dhacay waxaan ugu dhacay baasaboorradeena guriga uga soo tagnay meesha dad joogtaan baasaboorkeena wata waan la iska weydiinaya baasaboorka ku weydiinaya meel kasta waa lagu weydiinayaa ciish war baasaboorradeena ha ka taganina wallaahi aniga qalad baa igu dhacay aniga horta waxa uga tagay gurigii ninkanna waxa waaye gaarigu malayna ku dhex jiroodo isaga guriga ku lalaaway ismaana ogeyn mar dambe waxaan siri ninkan baa ku baxsanaysaa maadaama baasaboorka wataa صح isagana waaba ilaa weligiisna kuma dhicin marka subxaan allah waa qadar wax qoran weeye waxaa leeyahay khayr inagu jiro insha allah saaxiibayaal bad noo soo daceeya kolley waxaad daawanaysaan fideoga markay hawsha dhammaato dhan wada roob noqday lamana socon karo lamana ordi karo waa lagu helayaa roob baa ka helaya roob weyti siiradda ayaan ku dhex warwareegaynaa waxaan raadinaynaa hotel oo aan seexano hoteelada oo dhan baasaboor ayay naga codsadeen anigana baasaboorkii waan ilaaway subxaan allah alaabtu waa badnayd qalabka xoogga saaray qalabkayga jaajgaraysanayay kaamarooyinkii the good thing is waxa weeye Malaysia kastoo baasaboorka mar walba waa muhiim inaad wadatid laakiin wax dhibaato aan kalama soo kulmin cid dhibaataysan male Soomaaliya marka lagu yiraahdo Soomaaliya ma ka timid su'aal uu leeyahay dadka waa ixtiraam gaar ah leedahay airportka markaan soo galay waxaan la weydiin walaa runtii waa Soomaaliya ka yimid Muqdisho ba alxamdulillah rabbil caalamiin wax walba ilaahay isbuuga dhigay airportkana runtii airportka Malaysia waa aad buu jaam garaysan yahay waa queue dheer baa la galayaa aad baa horta subxaan allah dadku dalxiistayaashu aad u badan yihiin marka jaamkaas waxa lagu jiraa saacado ilaa waxa ku jirnay ilaa 3 saacadood baa waxa taagnayn ba airportka marka waxa jirtay yellow fever-kii baa aragnay dadka Afrikaanka ka yimid Kenya iyo Sudan iyo meel allah la weesha Afrikaanka oo dhan baa queue halkaan kale yellow fever-ka marka cid kula hadlaysa ma laha adiga ismaa mushad weeye waxaan basiriba idinkana waa idinka baahan yahay xaggaas inay istaagtaan because Afrikaan baa wada taagna Soomaali xataa ku jirtay marka waan galnay queue-gii hadaa galnay oo iyadana saacadii barak ku khasaareen naagtii markay weydiisay tiri xayeeka socota u sheegay Soomaaliya baasaboorka baan tusay Soomaaliya uma baahnid bay tiri listay kuma wajirtaan baa dadka waa dad caafimaad baa qabtaan wax dhibaato ay kuma leeyihiin iska dhaqaaq bay tiri wayna farxad bay tiri soo dhawow uma baahnid necessary maaha iska soco immigration kana si aad bay tiri immigration kii baan aaday immigration kana ku weydiiyay imisa joogaysaa oo sheegay xawalo usbuuc baan joogayaa wuxuu igu dhuftay bil bigu dhuftay visa ah wax kalena ma weydiin marka runtii waan ku faraxsanahay horta dadkan shacabka Malaysiyaanka runtii waa shacab aad u qaaliya runtii dad aad u wanaagsan oo xagga ma sha Allah ayaguna xagga muslim macna majority waa muslim marka dadka muslimkana aad baa loo soo dhaweynayaa gaar ahaan Soomaalidana waxa lagu jecel yahay waa dad alxamdulillah rabbil caalamiin oo diintooda ku adag oo ma sha Allah markay arkaan Soomaalina tahay waa soo dhaweynayaan ugu farxayaan ugu qoslayaan soo dhaw bay ku leeyihiin ma sha Allah bay ku leeyihiin ma sha Allah anigana marka waxa fanaanadana soo xirtay waxaan u soo qaatay ugu talagalay inaan ku faano Soomaalinimadeeda oo aan meelaha la warwareegaan aan ka baqin oo aan ku faano aniga meeshan ka yimid way wal weydiinaya dad ummado kale aan socdo xagee ka timid waan la weydiiyaa waddanka ka socotaan marka waa u joogaan Soomaali marka fanaanadaas soo xirtay wadaasay arkaan xilli Soomaali warkaas madaxa lagu ruuxay waa loo qaslaya marka ma sha Allah wallahi runtii waa aad baa u farxay runtii waa xiisad Ingiriisi inaan sii joogo xoogaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa in si fiican ku damaashaadno waddankan oo aan kaga soo tagno anagoo caafimaad qabno insha Allah oo wanaagii farxad iyo wax wanaagsan oo khibrad inaan ka dhaxalno insha Allah ayaan rajeynayaa gaar ahaan aniga wax baalo aad far badan ayaan ka bartay intaan joogo Malaysia marka insha Allah walina waa kama hordhacay insha Allah arrimahaas oo dhan waa ka warbixin doonaa waxyaalahan soo arkay iyo dareenkayga insha Allah haya alxamdulillah wax ka soo inoo hagaageen ma hadda iska leh hotelkiina waa la bukiray warqii waa kuwa noo dhibeen alxamdulillah haddana waxaan tagay waxaan cunayna deen xeebtan galayna oo before xeebta waxaan sameynaa cable car kan wacaya cable car ay muhiimsan ani waxa soo war aan galna horta qolkii roob hadii uusan nagu soo dayn ka gaashino